ugu dambeyn sidii la filayay wadankii Switzerland waxaa gaaray labada dhinac ee heshiiska u dhaxeeyay iyo dhexdhexaadiyaashii intaba kuwaasoo maanta is arkay isla markaana aada u soo dhaweeyay wixii laga wada hadlayay dhanka Mareykanka waxaa hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi iyo sidoo kale xogeyihiisa ama maxaan ku dhahaa ergeygiisa kaarka ee arrimahani ninka la yidhaha Steve Witkoff iyo wiilka uu sodonka u yahay ayaa hogaaminayay dhanka Iiraaniyiinta oo ayaga warbaahintaana kasoo muuqan laakiin hoolka lagu arkayna waxaa hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi iyo xubno kale dabcan waxaa aad loo soo dhaweeyay in halkaas lagu kulmo isla markaana is aragii gobaad iyo warbaahintu waxay tabinaysaa ayaa waxay ahaayeen. Well, this is the room where the historic negotiations have now begun. As you heard the US Vice President talk about how difficult this road ahead is, but showing hope that there is some progress to be made. It is going to be a testing 60-day period in which there is a lot of work that needs to be done. And in the room you can see... inta ay soo dhaweynta socotay ayaa hoolka waxaa isku arkay ninka la yidhaha JD Vance iyo madaxweynihii dalka prime ministerkii dalka maxaan ku rahdaa Qatar iyo hogaamiyihii Pakistan ayaa isku arkay kuwaasoo si fiican uga hadlay arrinta soona dhaweeyay warbaahinta waxaa laga yaabaa inta badan laguma arag nimankii ay soo xusheen Iiraan ee argeyda Iiraan ee ka howlgalay laakiin mar walba Twitterka ay kusoo qorayeen dhacdooyin kalena waa ay dhaceen inkastoo gadaalan ka falanqeyn doona bal marka hore siday qodbooyinka u kala qaadanayaan si gogoos u fiiri doonaa. At this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very real and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of xaqiiqatan ninkan oo ahaa ninkii la dhihi kara dadaalkii ugu badnaa geliyay in nabad ay ka dhacdo bariga dhexe ayaa aada ugu mahad celiyay labada dhinacba sida ay uga aqbaleen iyo wixii uu ka soo maray intaba ayuu ka mahad celiyay asagoo dadkii kala qayb qaatay arrintaasna u qiray oo keligiis keliya aan kuusha isku ekaynin sidoo kale waxaa hadlay ninkii ku-xigeenka uu ahaa Donald Trump oo asagana sheegay sidoo kale dhibaatada laga soo maray iyo sida weliba inkastoo uu ammaan kala duldhacay madaxweynihiisa haddana asagana wax ma qirin labada dhinacna waa u qiray sida uga qayb qaateen isla markaana waxyaabaha muhiimka ah meeshaas inay ka heli karaan ay ahayd oo in Hormuz la furo nuclearka Iran laga tanaasulo waxyaabahaas oo dhan uu sheegay sida uu faraxsan yahay weliba in mar kale Iran iyo Mareykanku ay aalay iyo saaxiib ay dad heshiisa noqdaan asagana hadalkiisa waxaa ka mid ah. I'll say just a few words here. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been with his leadership and his very careful and skilled negotiation has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that. sidoo kale Qatar ayaa hadashay iyadana sidoo kale oo markaasi ra'iisul wasaaraha Qatar oo meesha joogay asagana nin doorkii uu kula arintan aan la inkiri karin ayaa sidoo kale ka hadlay asagana sidoo kale labada dhinacna waa u mahad celiyay meesha laga soo bilaabay meesha uu joogay aad ugu faraxsanaa shirka kan hadaladiisana waxa kamid ah asagana.
Let Sheikh Mohammed speak, please. First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister. Your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process, that's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Witkoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side, Dr. Ghalibaf and Dr. Araqji. I would like to thank all of you for your leadership. sidoo kale goobta waxaa lagu arkay iyo howlka ergadii iiraan ka socotay oo iyagana si faraxsan halkaas usoo galay dadkana salaamayay. inkastoo xoogaa warbaahinta ayna la hadlin ayna hor imaanin, haddana inta badan dhanka Twitterka iyo social media ay aada uga hadlayeen. xataa maraykankana way u jawaabeen iyo Donald Trump oo mar iska hadlayay fideogoodii iyo muuqaaladoodana dabcan warbaahinta ayaa soo qaadatay, karaan Al Jazeera iyo Reuters iyo warbaahinta ayaa aada usoo xignay. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. How's your trip? Wonderful, and you were able to make it? Good. Yes. Your Excellency. Sir. intaas inta ay dhacayeen markaan uga gudubna xafladihii, inkastoo wejigii labaad iyo furitaankii iyo wixii dhamaa beri ay dhiman yihiin oo beri lays arki doono, inuu badan tahay inuu beri soo gabagaboobo hadalka. ayaa haddana Donald Trump Truth Socialkiisa wuxuu kusoo qoray mar kale qarax xumeyn kara dagaalkii iyo shooshii dib u sii wadi kara, iyadoo la ogyahay weliba Iiraan inay Saturday-dii xirtay Hormuz oo weli xiran yahay, balse markii dambe la sheegay in doomaha yaryar maanta ay marayeen Mareykanka sida ay sheegeen. wuxuu sheegay in Iiraan haddii ay joojuweyso taageerada ay siiso Xisbullah ay mar kale dib u karaaci doonaan, uu yidhi sidii dhacday isbuucii hore oo kale. wax yar inay ka daran tahay bas ayaan karaaci doonaa hori, laakiin waa karaaci doonaa hori, taasoo arrintii sii hadlaysa haddana. laakiin nimanka Iiraaniyiintu waxaad moodaa in diblomaasi ahaanba ay wax badan fahmeen. kadib ayaa hadalkii loo soo gaabiyo, waxaa la yidhi haddii adigu aada wax tari karto wax qaraacitaankaad waxay ku joojin karaan maanta Switzerland lama imaadeen lagumana heshiiyeen. la yidhi hadalkaas waxaa u qoraya gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iiraan ayaa u jawaabay, qof kale uma jawaabin, dad kale oo badan u jawaabeen waa jireen, laakiin jawaabta ugu fiican oo la siiyay midaas marka falanqeeyaasha ayaa waxay leeyihiin uun qaarkood inta badan wadahadalkan wuxuu u muuqan doonaa midkii ayaan dhaweyd Bakistan iyo Cumaan iyo Turkiga ka dhacay oo wax noqon waayay, maadaama ninka la yiraahdo Donald Trump nin isbedel badan uu yahay, Israa'iil wax badan ay qasayso, waxyaabahaas oo dhan ayaa la sheegay. midda kale maanta ciidamada Israa'iil ee Lebanon ku sugan ayaa taliya ciidan oo la hadlayay wuxuu sheegay in ciidamada ay isdiyaariyaan dagaalna ay isku diyaariyaan, isla markaana ay sii wadi doonaan dagaalka, taasoo weli ka dhigaysa waxa laga hadlayo laga heshiinayo in weli miiska ay yaalaan oo dhibkooda uu muuqdo. marka midaas weji kale inay yeelan doonto ay u badan tahay, oo in Mareykanka markani uu dhabarka toos ugu jeedi doono wadanka Israa'iil. waaba hadiiba shirkan iyo maxaan ku raahdaa wada hadalkan uu si fiican ku dhamaado la isku afkarta, waa inkastoo falanqeeyaashu ay leeyihiin lama oga iyo sida uu kusoo dhamaan doono lama fahansana. laakiin haddii ay dhacdo waxay u badan tahay in Lebanon iyo Iiraan iyo Israa'iil ayaga la isku dhaafi doono, waayo wada hadalka haddii ay ku jirto in Xisbullah duqeynta laga dhaafo, Israa'iilna ay ka dhaafweyso, Iiraan waxaa qasaba inay allaygaada saaxiibkaas ay leedahay ee caawiso, isla markaana qasab ay tahay in Israa'iil ay ka celiso. taas ayadu marka weji kale ay yeelan doontaa. laakiin midda Mareykanka iyo u dhaxayso Iiraan waa haddii ay soo gabagabowdo waa oo lagu guuleystay, inkastoo Donald Trump weli uu xoogaa iska hayo. gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iiraan oo sheegay ayaa yidhi haddii micnaha qaraacitaanka Israa'iil ay sii socoto iyo weliba aflagaadada Trump waxaa muuqata ayuu yidhi in uunan sii soco karin. uu yidhi heshiiskan 60 maalmood oo Memorandum of Understanding la yidhaha inuu isku bedeli karo waxa la yidhaha Memorandum of Misunderstanding, oo ah in lagu heshiiyey inaan la heshiin. dabcan wixii soo baxa saacadaha kale ayaan arki doonaa.
isha ayaanu ku hayn doonaa barnaamijkeena xogta caalamka ayaanu kusoo gudbin doonaa.